daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee toosane technical. Markaan Facebook adeegsanayno waxaan aragnaa postiyo kala duwan oo ay soo dhigeen dadyo kala duwan. Postiyada la soo dhigo Facebook waxay isugu jiraan laba qaybood. Post qoraal ah iyo post muuqaal ah. Muuqaalkeen waxaan kaga hadlaynaa postiga qoraalka ah. Postiyada qoraalka ah waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Posti qoraalkiisa aan fahmi karno oo ah luqadeena hooyo ama luqada Soomaaliga iyo posti oo luqad ajnabi ah ku qoran sida luqada Carabiga, Englishka, Faransiiska iyo Jeenaha iyo wixii la midka ah. Waxa laga yaabaa mararka qaar postiyada luqadaha ajnabiga ah lagu soo dhigo inay xambaarsan yihiin macluumaad nolosheena muhiim u ah. Balse luqadii iyo adag iyo fahamka fiican oo aan luqada ka haysanin darteed ayaa laga yaabaa mararka qaarkood inaan isaga dhaafno qoraalkaasi. Muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sidaad awood ugu yeelan lahayd in aad posti walba ee Facebook la soo dhigo luqadoo doona ha ku qornaaday aad akhrin karto ama aad ku heli kartid luqadaada hooyo oo lagu tarjumo translator lagu sameeyo. war badan kugu daalin aan ku tuso sida aad posti walba luqada afka Soomaaliga aad ugu dhigan lahayd. Marka hore waxaan soo kacsanaynaa application-keena Facebook. Kadibna waxaan tagaynaa saddexda ilig ee sare ama hoose. Kadibna waxaan tagaynaa halka hoose ay ku qoran tahay settings ama settings and privacy furo. Kadibna waxaad tagtaa settings. Kadibna waxaa ka xulataa halkan ay ku qoran tahay translation for posts. Markaad xulato kadib qaybta labaad ay ku qoran tahay language you would like to have posts translated into luqada aad markaad rabtid in lagu tarjumo ayaad samaysanaysaa marka. Halkan aad furaysaa waxaa ku jiro luqada Ingiriiska, Isbaanyool, Faransiis, Japanese iyo luqado tiro badan oo aan la soo koobi karin. Luqada u baahan tahay in lagu tarjumo posti walba la soo dhigo ayaad meeshan ka xulinaysaa. Tusaale ahaan hadda aniga waxaa ii dooran luqada Soomaaliga ah waana afka Soomaali sida ujeedin af Soomaali ayaa ii dooran. Marka luqada kugu fudud in lagu tarjumo aad jeceshahay ayaad meeshan ka dhiganaysaa. Waa intaas ku mahadsanid daawashadaada. fadlan haddaad channelka cusubta subscribe saar lana wadaag asxaabtaada oo muuqaalka u share gareey. Haddii aad ka heshay muuqaalka like saar. Inta aan ku kulmayno muuqaalka xigo sida nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.